بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii xisnul muslimka waxaa noogu soo dambaysay cadowga la kulankiisa iyo midka suldaanka u saaxiibkaa ducadii markaa looga ducaysan lahaa. ducaau man khaaf, qofkii ka cabsada ducadeeda waayo dulma suldaani, suldaanka dulmigiisa. ninka madaxweynee dadka hogaamiya haddii dulmi iyo waxyaabo kale uu la yimaado wixii looga ducaysan lahaa allahuma raba asamaawaati sabci wa raba alcarshi alcadiim. allah samaawaadka toddobadaa rabbi u ahow, carshiga cadiimka u ahow, kun lii jaaran, jaarkiiga noqo, min fulaan ibni fulaani, jaar kun lii ahow jaaran mid iga koriya, jaaran mid jaarkiiga ah daris min fulaan ibni fulaani, iyo wa axsaabihi xisbiyooyinkiisa wa askartiisoo min khalaa'iqika khalqigaaga ka mida an yafruqa calaya axad, inuu axad oo minhum ayaga ka mida uu igu soo xadgudbo ow yaqabo, ama inuu marka igu garbarsadooro. caza jaaruka, deriskaanimadaada ayaa cizi lahaatay, wajal waxaa weynaaday sanaa'uka ammaantaada, walaa ilaaha ilaa anta, ilaahaan adi ahayna ma jira. waxaad kaloo dhahaysaa allahu akbar, allahu acazu min khalqihi, allahu akbaru, ilaahay ayaa weyn, allahu ilaahay ayaa acazu ka cizi badan oo ka weyn oo ka sarreeya min khalqihi, khalqigiisa jamiican dhammaantoodba. allahu ilaahay ayaa acazu ka cizi badan oo ka weyn mima akhaafu, waxaan ka cabsanayo oo wa axdaru aan ka digtoonahay. acuudu billaahi, ilaahay ayaan magan galay, alladii allihii laa ilaaha ilaa huwa, asaga meehee mid kale uusan jirin, almumsiki samaawaati, ka qabtay samaawaadka asabci ee toddobada ah, an yaqacna cala alardi, inay dhulka ku soo dhacaan, ilaa biidnihi, asaga idinkiisa maahana, min shari cabdika fulaani, addoonkaagii jihaad ayaa la rabaa in la galo. cadowgii waa yimideen, waxaan dhahaynaa allaahumma munzila alkitaabi, kitaabka allaha soo dejiyey oo sariica alxisaabi, xisaabkiisu degdegayow, ahzimi alaxzaaba, jameecooyinkan allow jeri, allaahuma ahzimhum, ilaahayow jeri oo wazalzilhum, ruxrux ayagoo dhanba dhowlka ay ku taagan yihiin, ilaahayow zilzaal ku abuur. maa yaquulu, wuxuu dhihi lahaa man khaafa qowman, qofkii qoom ka cabsada. qoom ayaad ka cabsatay, waxaad dhihi lahayd allaahuma akfiniihim, ilaahow iiga kaafi kuwaan oo iigaga celi bimaa shita saa doonto. ilaahayo waa kuwaana way soo dhow yihiin, qoomkii waa igu soo dhowaadeen, dhib inay igaarsiiyaan ayaan ka cabsi qabaa, ama sawaaba ku wadaan oo dhib iyo mashaakil ayay rabaan inay ku gaarsiiyaan. allaahuma akfiniihim bimaa shita, ilaahayow saa doonta iiga kaafi dheh. ducaau man asaabahu shakun, qofkii asiiba shaki fi liimaani, iimaanka dhexdiisa ducaduu ku ducaysan lahaa. mararka gobol ka mida adoo iimaankaagu taab yahay waswaasku gelaayo, waayahay ilaahay yaa abuuraa qalbigaaga soo gelaayo. xaaladaan see yihiin, maxaa adduunkan loo abuuray, haddii la dhinto amaanba la soo baxaynin, iyo iimaankaaga wax dhaabacayaad mararka gobol kamida iskula sheekaysataa. axadka markuu meeshaa gaara, yastacidu billaahi, ilaahay ayuu magangelayaa, yantahi camaa shaka fiihi, wixii shakiga ka gala xaggiisa ayuu ka joogsanayaa. yaquul wuxuu dhahayaa aamantu billaahi, ilaahay ayaan aaminay, iyo wa rusulihi, rusushiisa. yaqra'u wuxuu akrinayaa qowluhu tacaala, ilaahay qowlkiisa, huwa alwalu walaakhiru walظaahiru walbaatinu wahuwa bikulli shayin caliimun. huwa ilaahay alwal, alla jiri jiray waayo, walaakhiru alla aakhir oo dambeeyo waayo, waxba aan ka dambayn, waalظaahiru alla daahir ah oo muuqdo waayo, waalbaatinu alla qarsoon oon la arkin waayo, wahuwa bikulli shayin caliim, shay kastaa midku cilmi badan waayo. ducaau qadaa'i dayni,
daynta gudideeda ducadii looga ducaysan waayo looga ducaysta waayo isticsaab bay kugu noqotay, dayntii waa kugu cuslaatay. waxaad dhahaysaa allahuma akfinii bixalaalika, ilaahayow xalaashaada igaga kaafi can xaraamika xaraamtaada, wa aqninii iga deeq bifadlika, fadligaagana waxaad igaga kaganiyaysaa caman siwaaka wixii adi kaa soo haray, wixii adi kaa soo harayna igaga deeq ilaahayow. allahuma akfinii, ilaahayow iga kaafi bixalaalika can xaraamika, oo xalaasha aad isiisa waxaan uga kaaftooma xaaraamtaada iiga dhig. wa aqninii, waxaad iga taajirisaa ood iga kaafisaa bifadlika, fadligaaga caman siwaaka wixii adi kaa soo haray, shaksi adi kaa soo haray bayaanan u baahanin waaye. allaahuma inii acuudu bikaad dhahaysaa haddana, ilaahayow adiga ayaan kaa magan galay min alhammi murugta, waalxasani tiiraayada, waalcajzi cajziga, waalkasali wahsiga, waalbukli bakiiltinimada, waaljubani fulaynimada, iyo wadalaci dayni daynta mideeda culus, iyo waghalabati rijaali ragga qalabadooda iyo guulayshadooda, raggu inay kaa guulaystaan ma fiicna si kasta iyo xaalad walbada ay ahaato. sidaa darteed allaahuma inii acuudu bika, ilaahow adigaan kaa magan galay min alhammi murug, waalxasani waa murugta adag, cajiska iyo kasliga waa isku macno dhow yihiin. hamiga iyo xasankana waa sidoo kale, waa diintood laga wahsado, waa qur'aankood laga caajiso, waa khayrkood laga wahsado. waalbukli bakiiltinimo, waa inaad ka bakiishaa nebiga salligiisa, waa inaad ka bakiishaa xaqa, waa inaad xoolahaaga, caqligaaga, awooddaada, cilmigaaga aad ka bakiisho, taasaa loola jeeda. waaljubani fulaynimo, inaad cadowga gaaladaa ka fulayowdo iyo iska celitaankooda. wadalaci dayn iyo waghalabati rijaali, daynta ayaan kaa magan galay iyo rijaasha halabadooda. ducaau alwaswasati fi salaati waalqiraa'a, marka gobol ka mid ah adigoo qiraa'adii akrinaya ama salaada gudaheedaad ku waswaasaysaa, waxaad uga hortegi lahayd waayo ileen alwiqaaya khayrun min alcilaaj, ka hortaga ayaa ka fadli iyo khayr badan isdaaweynta. hadhow intaysan dhicin ka hortag. acuudu billaahi min ashaytaani arajiim dheh, waxaan ka magan galay ilaahay shaytaanka rajiimkee la fogeeyey oo la dhaqaajiyey oo la burjiyey. waa fulfuf calaa yasaarika, bidixdaada talaata, 3 mar dhinaca bidixdaa u tuf. waa tufitaan bilaa riiq, aan candhuuf lahayn oo afuuf keligiis markaa ah. saasaa 3 mar dhahaysaa haddii shaytaanka salaada uu kugu dhex dhibo. duca waaye man istacsaba calayhi amrun, qofkii amarku cuslaado, arrin baa kuu cuslaato, waxbaa kaa kuu toosi waaye, tallaabada iyo jihadaad qaadalo waa soo xirantaa. dad fara badan oo xaaladooda sidaa ay tahay ayaa markaa jirta, laakiin nasiib xumo dadka waxbaaliyay u tagaan, nasiib xumo saaxiriintay u tagaan, nasiib xumo waxyaabo kalay sameeyaan. rasuulku wuxuu kuu tilmaamayaa arrin qiimo badan oo dhibaato aan lahayn, ajirna aad ku helayso, ilaahayna arrinta uu kuu furfurayo subxaana wa tacaala. allaahum yaa allah waayo macnaheeda, ilaahayow laa sahla, wax sahal ah ma jira ilaa maa jacaltahu sahlan, waxaad adiga sahasho ood fududaysa maahane. wa anta tajcalu alxasna, ilaahayow shayga murugta iyo dhibkii ciriiriga badan ayaad ka dhigtaa idaa shi'ta sahlan, haddaad doonto mid fudud. taasuu alla kugu fududaynaya subxaana wa tacaala. tuub asaga oo tilmaan waxaan inay colays iyo dhibaato yihiin asagood mooga.